dadka loo yaqaano albinism oo ah dadka maqaarkooda uu cad yahay Afrikana meelo badan laga ugaarsado si jirkooda loo cuno Soomaaliya ay ku nool yihiin haddaba Maxamed Abuukar Cabduqaadir waa muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho dib intee leeg ayuu kala kulmaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho warbixin arintaasi ku saabsan waxaa ka diyaariyay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaziz Cabdullaahi Riyali albinismku waa dadka maqaarka cad ee Soomaalidu ay u garanayaan boolka qaaradda Afrika way ku badan yihiin qaar kamid ah dalalka Afrikana aad ayaa si fool xun looga ugaarsadaa iyagoo loo geysto tacadiye isugu jira faquuq dil iyo in qaybo kamid ah jirkooda la goosto oo la cuno iyadoo la rumaysan yahay in qofkii jirkooda hilibka qayb kamid ah uu cuno uu noqonayo qof maalqabeena amba horumar gaaraya dowladaha ugu badan ee tacadiyada ay kala kulmaanna waxaa kamid ah Tanzania Congo, Burundi iyo kuwa kale oo qaaradda Afrika dhaca. Soomaaliya dadka noocaasa way ku nool yihiin laakiin sida looma ugaarsado. Maxamed Abuukar Cabduqaadir waa aabe albinism ah oo Soomaalidu ay u garanayaan boolka iyo magacyo kala duwan. Waxaan saakay aroor hore kula kulmay hooyga uu ka degan yahay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho isaga xaaskiisa iyo waliba 3 caruura oo dhalay halkaasi uu si wanaagsan igu soo dhaweeyay wuxuuna ka warbixiyay noloshiisa adag. anigoo ah Maxamed Abuukar Cabduqaadir oo ku nool degmada Xamar Jajab marka waxaan leeyahay 3 wiil ay joogto xaasan leeyahay caruuraan leeyahay haddana barnaamij oo bila shaqo ma hayo sidoo caruurta kuwa midib ma jiraan maya kuwa midib ma jiro hadii aniga aan guursaday laakiin gabar oo ani oo kale albinism ah caruur oo aniga midibkayga oo kale waa la helaa laakiin sad gabadhan aniga aan qabo albinism ah Boola Abuukar Cali waa xaaska Maxamed Abuukar Cabduqaadir oo ay jacayl isku guursadeen waxayna iga warbixinaysaa noloshiisa iyo dabeecadaha uu leeyahay iyadoo sheegtay inay aad ugu qanacsan tahay la noolaanshihiisa Maxamed Abuukar Cabduqaadir oo qanacsanahay ma sha Allah guriga ku jirnay reerkan dhaqaneena dabeecadiisa ma sha Allah aad iyo fiican yihiin xumaan ma ka sheegto ibarbaleen hadda oo cilad ay aan ku arkayo ma jiro 3 caruur ayaa u dhalay nolosha shaqadiisa waa iska yartay ilaa kale anaga waa iska dulqaadna waa iska dhaqmoona saas anagoo isku sabreyno oo ilmeyni awlaadina aan fiirseeno Maxamed Abuukar Cabduqaadir halkan waa guriga maalin walba uu ka shaqo tago inkastoo shaqada uu ka shaqeeyo ay tahay mid aad u liidata oo ah maalinna wax soo hel maalinna wax soo way hadda aniga ilnooliin noloshooda Ilaahay ayaa haay ana haay maantii magaalkaas aan iska aaday waxaan soo helay $4 $5 ha u yaraataa u badnaato waa u keenaa aroor waliba waxa uu shaqo tagaa suuqa Xamar Weyne laakiin ma hayo ganacsi aad u wanaagsan iyo waliba xoogsi noloshiisa kaafin kara waxaana dadka Soomaaliyeed codsaday garab maadaama uu yahay shakhsi bartay inuu xoogsado isla markaana shaqaysto waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed in la imaal geliyo oo mashruuc la yeelo oo qof binaadin aan hoos tagin oo aniga iskayga aan isku filnaado oo gaariga taa wax la isaaro mashruuc la ismee marka wax miis saaran $20 $25 oo saaran oo biilkaas ilmaha loogu raadinayo oo aniga arsaaq aan ka raadinayo $4 $5 laga helaa waxyaas marka dad deertan tuug bari bini'aadina micnaa baahi kaama goyso suuqa Xamar Weyne aad ayaa looga yaqaanaa Maxamed Abuukar Cabduqaadir haddana way adag tahay qof ku sheegta magaciisa waxa lagu tilmaamo iyo magacyo kala duwan oo ay qayb ka tahay gaduudo wada cadde kor cadde bool iyo kuwa kale uu sheegay in moraal ahaan inuusan jeclaysan inta hadda aniga asiga ka saayo magac gaduudo magac kale wali ma maqleen magacaas gaduudo kaliya aan ku maqlay aniga hadda 6 sano oo shaqeynaysa magaciisa inta taqaan ما يعني اسم موضة شقيهنا سوقا كليا اسكو كسينا كليا انت صح وكسو حرادا وانا كبخا مغيس runta aan gadido aan garnaa kaliya kan intaan arkayna inta wax ku soo xareystaa banaankaas oo adiga xaraash laabtaas soo xaraasha galabtii baxa saacadaan oo kala baxa habeenkii 3 saac mar 4 saac soo xarooda mar basiyo ku soo xarooda suuqa si ay naqato waay maanta Ilaahay uu dhameeyay shaqadiisa Ilaahay u fududeey ayuu isku soo xarooda gurigiisa iska aadaa inkastoo uusan ka baqayn in la qasho la gowracdo la jir dilo amba jirkiisa la dhibaateeyo sida ka taagan qaybo kamid ah Afrika haddana wuxuu sheegayaa mararka qaar inay jiraan faquuq iyo waliba daruufo kale ee ka soo wajaha dadka iyadoo lagu tilmaamo inuu yahay qof waalidkii inkaareen sida daraadiina gibilkiisa uu isku bedelay marka magaalada markaan aadnana dadka qaarkood taa faquuq ay inoo geystaan oo takoor ahaan dadka qaar waa inay aflagaadeeyaan waxaan naasan maxaa idin cadeeyay saamaxa idin ka dhigaysan maxaa dadka waqti ay dadka isku maahan Soomaali jaahil ay uu jooga dad wax garta in uu jooga marka qaarka jaahilka ee maanta waxaan naan war saamaxa ku cadeeyay san maxaa ka dhigay marka waxyaabaas dhan aanu dhig u dhigeenin
aan ganacsiga iska wataa ganacsiga reeruutan iska wataa amriin aan iska shaqo waxaana meena cudur ma aha waa dhalasho waa haybad waa xayawaanka uu leeyahay sida ariga bisada geela maskata uu leeyahay dadkana waxay aaminsan yihiin dadka saan oo kale in abtigood uu hawaare had wiil oo waxa jiro asiga ana oo kale oo igu hooy uu aaba oo il dhash sax maalinkii dad baa waxa ku dhaar saam waxa ku cadeey war maxaa dhac markaas aniga waxa dhig moodi danihii gaarkan ka fiirsada waxa iiga muuqanaya dadaal fara badan iyo karti isku filnaansho iimaan iyo waliba adkaysi intii aan la joogay Abdicays Abdullaahi Maxamed Abdicays Somali Cable magaalada Muqdisho.